Waxaan habeenkii siiyey casho macaan waan la sheekaystay waxaana u sheegay inaan ku faraxsanahay noloshana aan la qaadanayo, meelna aana u socon. Odaygiina waa uu i aaminay si wanaagsan xaafaddana adaa u sareeya. Amarkagana waan qaadan waxaad idhahdo keena waan kuu keenayaa ayuu idahay. Waxaana maanta ka helay ilaa caawana waa wax ii gaar ah oon ku farxo. Nolosha qoyska waxa ugu farxad badan waa labada lamaane oo isku faraxsan, is-aaminsan, isna jecel. Alle haykaadayo xaaskaygay ayuu idahay. Waan wada seexanay sidii caadada ahaydna subaxii waxaan u diyaarshay waxa uu cuni lahaa oo cabi lahaa. Waxaana uu subaxii iga tegay asagoo kolba ishuminaya oo leh macaan waxaanba ka baqayaa inaan ku waayo farxadda aad i siisay. Haddaan sidan u malaynayo inay farxaddii kaa buuxdo kuma dileen habeenkii xoogna wax kagama qaateen. Waan ka shalaytaysanahay ee igaraali ahow. Qadadii ayaan u sameeyey waxaan u keenay fadhiga waa soo qabaystay waxaan wada cunay qadadii. Markaan dhammaynay ayuu idahay intuu gacanta i qabtay ina keen qolka jiifka waan kuu baahnahaye waxaan rabaa inaan wax ku soo siiye. Waan raacay waxa uu iga xiray indhaha waxa uuna ii xiray. Markaas waxay ahayd anoo garanaynin katiinad dahab ah oo qaali ah iyo weliba farantiyadii iyo dhagadhagihii. Wuxuuna i istaajiyey muraayadii indhihii ayuu iga furay mise waaba anoo dahabaysan. Alla farxad weyna. Intaan dhahay ayaan habsiiyey asagana waa uu ku farxay farxadda iga muuqata iyo habsiinta. Wuxuuna ii sheegay in anaan caawa wax casha ah samaynin oon magaalada ka soo cashaynayno. Maqribkii ayaan kacnay oon gaari qaadanay waxaana tagnay hoteelkii ugu qaalisana cunooyinka. Markaas waxaa naloo soo dhaweeyey si aanan weligay arag oo marti loo soo dhaweeyo. Waxaa nala geeyey kuraas iyo miis noo gaar ah oon malaha is-iri mar hore ayaaba laga sii shaqeeyey casumaada iyo martiqaadkan. Waxaan arkay shaqaale badan oo kala ordaya dadka meesha wada fadhiya waa wada lamaane qofba qof ayuu wataa. Waxaa isku darsan ama isku mashquulsan malahan. Waxaana dhahay xaajigaygii maxaa shaqaalahan waxaad mooda dad magacyadeena sii haystay oo casumadeena la socdee. Wuxuuna ii sheegay in saaka markuu iga baxay hoteelkan yimid oo uu u sheegay xaaskiisa uu jecel yahay inuu marti qaadayo markaasna laga qortay magacyadeena. Sidaan ayaanana loogu adeegay waxaana naloo daaray heeso dabacsan iyo muusigo ananba arag dhawaaqeeda macanideeda. Waxaan cunnay cunadii waxaana wada sheekaysanay sheeko dheer. Wuxuuna ii sheegay inuu iskaga soo guurayo qurbaha markaana doonayo inuu ka shaqaysto magaaladan aan deganahay. Wuxuuna igala tashaday sidaan u arko. Anama xuma ayaan dhahay. Waa wax wanaagsan. Wuxuu ii dhahay gabar yar ayaad tahay inaan kaa tago oon dhasha kugu baajiyo ma ahan 2 sano ayaan waxa iga yaala oo dhan ku soo dhammaysanayaa dibadda. Waxaan meeshaan ka samaysanayaa ganacsi xoog leh madaxna waad u noqonaysaa gacaliso maadaama aad tahay qof wax baratay. Waxaan cunnay cunadii waxaana wada sheekaysanay sheeko dheer. Wuxuu ii sheegay inuu iskaga soo guurayo qurbaha markana doonayo inuu ka shaqaysto magaaladan deganahay. Wuxuu igala tashatay sidaan u arko. Anama xuma ayaan dhahay. Waa wax wanaagsan. Wuxuu ii dhahay gabadh yar ayaa tahay inaan kaa tago oon dhasha kugu baajiyo ma ahaan 2 sano ayaan waxa iga yaalo oo dhan ku soo dhammaysan dibadda. Waxaan meeshan ka samaysan ganacsi xoog leh madaxna waad u noqonaysa gacaliso maadaama tahay qof wax baratay. Waxaan in badan sheekaysano oon meeshii joogno waxaa u soo dhacay telefoon. Wuu ka qabtay waxaana uu dhahay xaaji cali ii waran ma imaatay. Ka waran Dubai see lagu ahaa reerkiisow ma wanaagsanayn. Aniga waan kuu wanaagsanahay. Aniga iyo xaaskayga ayaa caawa wada cashaynayna oo hoteel joogna. Waan ku imaan beri subax insha Allah iskana soo caawa. Waxba ma weydiin aniga balse asagaa si farxad leh iigu sheegay. Gacaliso waa saaxiibkay oo aan qurbaha wada joognay. Dubai ayuu maalmo joogay hadduu ka imaaday. Waa sudaydoo kale inuu guursado ayuu doonayaa. Markaan adiga ku helay ayaan wanaagaaga u sheegay iyo sida wanaagsan ee waddankeena looga helayo gabdho wanaagsan oo aqoon leh oo dayar. Waxaan dhahay ma hadduu doonaya inuu guursado. Markaas ayuu ii dhahay haa laakiin xaas hore waa lahaa ciyaal badan ayay u dhashay waana waa weynadeen oo waa awow. Ilmahuu awowga u yahay ayaaba wax yar kadib guursan doona. Marka waddankuu rabaa inuu iska degoo iskaga ganacsado intuu reer ka samaysto halkan. Waa nin wanaagsan oo shaqo badan. Waxaan aad uga murgay nolosha gabdhaha yaryar ee loo tashanayo. Alla maxaa gabadho badan sidaas lagu guursaday noloshooda ay gashay qabyo. Waan wada baxnay waxaana aadnay gurigii. Waxa uu isii marsiiyey dhowr carwo oo waaweyn. Wuxuuna iiga gaday dar waxaan uga baahnay igana anfacay. Wuxuuna ii sheegay inuu aad iga helay noloshiisana ay aniga aad iga heshay ina sii jeclaanayo. Wuxuuna iga codsaday inaan garabkiisa ahaado markasta. Waagii waa baryey waxaana siiyey qureec waana iga baxay asagoo ii sheegay inuu maanta aadayo ninkii ay saaxiibka ahayeen ee uu xalay la hadlayay waana soo qada doonan ayuu i dhahay. Wixii howl ii taalay ayaan iska dhammaystay. Waxa uu ii imaaday duhurkii waan wada qadaynay. Markaan wada qadaynay ayuu guriga galay. Wuxuuna soo qaaday bac qurux badan oo wax ku jiraan oonba isdahay maxay ahayd waxaas bacdaan sidaan u qurxoon ku jira. Anoo naftayda la hadlaayo ayuu i dhahay macaanto waxaan doonayaa inaan hadiyad yar ku guddoonsiiyo aad ayaan kuu jeclahay.
wuxuu bacdii ka soo saaray 2 sad oo dahab ah oo aad u qurxoon. waan farxay waxaana siiyey hab aad ayuu ugu qancay. habsiintayda run ahaantii 2 sad waxay ahaayeen kuwo aad u qurxoon. wuxuu ii sheegay inuu ninkii uu sheegayay markuu Dubai joogay inuu 2 sad oo dahab ah u soo gado lacagtana uu siiyey markuu joogay Dubai. wuxuu i dhahay aad ayaan kuu jeclahay hadiyadahan yaryar ha u qaadan inaan maankaaga ku gadanayo ama aan kugu soo jiidanayo balse aniga xaaskaygaa tahay wax kasta xaaskayga waan ku siinayaa hantidayda waa hantidaada aniga haday ii suura gasho waxaan doonayaa inaan wax kasta ood iga codsato aan ku siiyo xaaskaygiyey alle ha ku xafido adoo ilma ii dhalayna alle haykaa tuso xaaskaygiyey. run ahaantii farxad ayaa ka muuqatay waana sugi la'a inuu arko ilmo u dhashay oo yarankiisa ah. balse sida uu ku fikirayo ee ah inaan aniga ilmo u dhalo si ka duwan ayaan aniga ku fikirayaa. aniga marnaba ma doonayo inaan uur qaado oon hooyo noqdo. marabo isla odaygan ilmo uu leeyahay inuu calooshayda galo balse danta ayaa igu haysa mana oga waxa qalbigayga ama uurkayga ku jira ee xanaaq ah. wuxuu u haystaa waxaan aan u qabanayaba inaan u qabanayo farxad iyo inaan reer dhaqanayo. alla yaa u sheega alla yaa ogeysiiya ayay sheekadu maraysaa marka aniga noloshayda wax ayay maagan tahay balse kama hordhacayo. inta uu hamiga ilmo dhalowga haystana waa mid asaga u taala. aniga habeen kasta intaan gogasha kuwada kulmin ka hor ayaan waxaan sii liqaa. intaan musqusha galo wax ishagaajinayo iska dhigo kiniiniga ilmaha kala fogeeya. waan wataa mar kasta waana ka qarsaday asaga xataa hadduu arko aad runta u sheegtid ood ku furfuratid ayaan damacsanahay balse waan u kadinayaa waayo madashaan ku casuumi lahaa ee wada murugta ahaa lama gaarin. waxaa aniga iga go'an iyo waxaa odaygayga ka go'an waa kaaf iyo kala dheeri. asagu waxa uu doonayaa inuu halkan soo dego oon aniga reerkiisa yar noqdo oo halkan uu ka dhigto saldhig mar kasta laga duulo anigana aan sannad kasta u dhalo oon halkaas xaajigaygo ka dhaho. balse waa midaan u cuntamaynin gabar mustaqbal fog ka fikiraysa aqoontay baranaysay laga afduubtay nolosheedana la geliyey god aad u ciriiri ah oo madow. anigase waxaan qaatay go'aan aan aniga iyo raxmaanka ognahay. odaygii waxaan siiyey farxad uu arko inay tahay mid niyad ah. wuxuu isiiyaa maalin kasta lacag. wuxuu idhahaa waxaad doonayso ku gado aniga waxaad ii tahay qasnadayda aan wax kasta ku aaminayo ee waxaad doonayso ku qabso lacagtan aan ku siinayo. wuxuu isiiyey aaminaad buuxda. wuxuu isiiyey xornimo badan. aniga iskama waalayo kiiska mana noqonayo qof dhaqso ficil aan loo baahnayn samaynayo balse waxaa maankayga ku soo dhacday allahayow qofaan wax ogayn ha cadaabin. walee waa run mahmaahdaas anigana wax baa ii duugan asagana wax kasta wuxuu ka dhigay waagii baryow walala. wuxuu maalmo kadib ii sii qaaday suuqa. wuxuu gaariga nagu sii wadaba. markaan suuqa gaarnay ayaa malaha odaygayga iyo saaxiibkiisii dahabka isoo gaday oo meel ku sugayay oobana ogaa inaan meesha soo marayno ayaa gaariga soo raacay. sheeko iyo qosol kadib ayaa waxaa la wada galay isbarasho. wuxuuna idhahay dumashii waran saxiibkay aad ayaan u jeclahay runtii marwo yar oo qurxoon ayuu helay. odaygayga oo gaariga wada ayaa isoo daymooday oo hadalka dafoo dhahay wale waa qurxoon tahay. garashada ee basiiyeyna waa midaynu weli arag. waxaana dhacday inuu dhahay odaygii kale alla war aniga maanta odayaal kula balansan hotelkan deganahayo waxay ii soo arkeen gabar qurxoon oo dayar ah. alla maxaa ka wanaagsan hadday taadoo kale ii noqoto. odaygaygii ayaa si kaftan ah u dhahay war waxtayda gaarayo malahane hayska waalin xiska iska guurso gabadhii laguu keeno anigu waan ducaysnaa oo raaliyo nin weyn baan helaye. sheekadii oo socota aana ku darsan hadal ayaa waxaan soo gaarnay meeshaan u soconay kadib ninkayga waa degtay oo carwa ayuu galay. ana waxaan iskaga jiray gaariga. wuxuu iga maqnaa waxaan badnayn. wuxuu iso gaday dhar cusub kabo iyo cataro dumar oo malaha is-iri dalab ayuuba ahaa oo loo diyaarshay. waxaa kale uu watay bac aanan weydiin waxa ku jira balse dhabta uu ii saaray. waxaana usii dhaqaaqnay dhanka iyo hoteelka uu deganaa odayga saaxiibkiisa ah. waxaana soconay cabaar kadib waanu gaarnay wuuna naga haray macsalmayn kadib. wuxuu i dhahay waa nin wanaagsan inuu gabar wanaagsan helaan ugu ducaynay. wuxuu i dhahay odayga hadalkaas balse aniga niyada waxaan ka dhahayaa weligaa helin waxna oo saas aho waayo gabdhaha in la lugooyo ma ahan. waxaan soo gaarnay guriganagii. waxaan nimaanay qolka jifka oon alaabta iskaga xareeyey. waxaan u keenay macamuus iyo fanaanad uu xirto caano ayaan uga soo baxshay talagada. wuxuuna i dhahay gacaliso kaalay bacdaas fur. anoon hadlin ayaan furay waayo bacda waxa ku jira aad ayaan ugu hamuun qabay inaan arko waxa ku jira. kadib ayaa waxaan arkay inay ku jirto lacag $1 ah oo aanan qiyaasteeda sheegi karin. markaas ayuu i dhahay lacagtan inoo hay meelna inoo dhig. carwadaas ayaa lacagta ii haysay balse adiga ayaan ku aaminay xaskaygana ah meel kale oo iiga kaa wanaagsan malaha ee inoo hay xajiyo lacagta waayahay intaan dhahay ayaan geliyey asagoo arka qaanad qufulan balse uu furaha ila haysto asagoo qur ah.
Waxaan arkay inuu si wanaagsan ii aaminay odayga aniga waxaan iska qabsaday howl malmeedkaygii waxaana markasta ahay qof aan wax xuman ah samaynaynin ishiisu waxay ku faraxdo ayaan sameeyaa markasta waxaan kula hadlaa hadal wadnihiisa wanaag iigu beeraya waxaana ahay qof iskala sheekaysata asaga oo qur ah waxaan mararka qaar uga sheekeeyaa noloshaan ku soo kornay iyo waxaan xafadeenna ka qaban jiray iyo waxaan aniga ku hamin jiray ee ahaa inaan noqdo aqoon-yahanad aad u cilmi saraysa waxaan aad ugu faraxsanaa ayaan dhahaa aqoontayda inaan ka gaaro heer balse adiga waxaad samaysay wax hadda ila wanaagsan balse horaan aan u arkaynin wax wanaagsan taaso ah inaad aniga isoo donatay balse hadda waxaan ahay marwo odaygii aad ayuu noloshayda ula dhaxsan yahay aniguu i waaniyey wuxuuna idahay gacaliso waxaan kaa raligelinaya hamiga aqoontada een kala baray een dhexda kaga istaagay balse waxaan kuu ballanqadayaa inaan ka dhigo gabar nolosheeda horumarisa markaan ganacsigayga halkan u soo wareejiyo een adiga mas-uulkaaga dhigo wax kastana aad amarkaaga ku bixiso waxaad wadan kartaa waxbarashadaadii waana ku siiyana rakaab meel kastaba aan joogee aniga agtayda waan ku faraxsanahay waxaana laga yaabaa inay noloshada isweydiiso odayga waa kaa weyn yahay adigana waad yar tahay cimrigiisa waa soo qaatay hadduu dhinto ciyaalkiisa weyn ayaa kaa qaadan hantida oo waxaad noqonaysa meelna gabadhaan haysan oo biil qaadata balse aniga noloshayda meel loo jiro ma garanayo hantida aad adiga leedahayna cid kuguma soo xadgudbayso waxaana ku sheegayaa inaan qoraal maxkamadeed aan kugu wareejin inshaa allah hanti aad adiga leedahay oo aad maalulan karto waxa dhaxalkaygana waad ku leedahay waxa alle iga kaa siiyo run ahaantii waxaan aad ula yabay halka uu igaarsiin rabo odaygayga iyo waxaan la damacsanahay inaan ku sameeyo taas oo maankiisa ku noqota mahadho aan dhammaanin balse aniga waxaas iima cada hanti iyo halkuu idahayo waan ku gaarsiinayaa aniga wax kale ayaa maankayga ku jira naftayduna wax ayaa u cad waxaana doonayaa inaana halka ii cad wax kastoo igu dhaca inaan ka istaagin xataa haddaan ku gaarayo gurguurasho la soco qaybaha xiga mahadsanid